naagtii shaaribo libaax soo goysay. waxaa la yidhi naag baa beri wadaad caalim ah u timid oo ku tiri shiikhow ninkaygii baa iga bayray oo ruux haween ah oo kaluu iga jeclaaday anigana waa uu inacay waxaan kaa doonayaa inaad qardhaas ii qortaa oo ninkaygii igu soo celisa. wuxuu wadaadkii ku yidhi waa hagaag ee waxaan ku idhaahdo miyaad yeeli? haa bay tidhi. wuxuu yidhi wadaadkii waxaad ii keentaa shaaribo libaax kolkaasaan kuu qorayaa qardhaasta uu ninkaagii kugu jeclaado. naagtiina waxay ku tidhi waa yahay wadaad. islaantii waa ay soo baxday madaxeeda iyo caqligeedana waa ay rorogtay. ugu dambayntiina waxaa u soo baxday qaabkay shaaribo libaax ku heli lahayd. reeruhu waxay degganaayeen meel libaax harkii iyo habeenkiiba uu u soo dhaco. libaaxuna galab dheer ayuu xoolaha xerada kala bixi jiray. naagtii waxay samaysay libaaxii ayay lax bannaanka xerada ugu xirtay habeenkii koowaad. sidii caadada ahaydba libaaxii ayaa u soo dhacay reerkii. laxdii oo uusan dhib ka marin ayuu xerada agteedii ka qaatay waa uuna la cararay. habeenkii labaad laxdii waxa ay ku xirtay oo ay keentay guriga bannaankiisa hore. sidii si la mid ah libaaxiina saqdhexa ayuu soo dhacay halkii ayuuna laxdii ka qaatay oo guriga u dhoweyd. dhowr habeen kadib laxdii ayay waxay samaysay guriga ayay soo gelisay meel uu libaaxu ka arki karo. xeradii ariga kalena meel uu uga dhici kara ma jirin. sidii caadada ahaydba saqdii dhex ayaa libaaxii soo dhacay meelaha ayuu marmaray. ugu dambayntiina waxa uu arkay laxda guriga ka soo jeeda. halhaleel ayuu ugu booday oo gurigii ayuu dalaq yidhi. islaantii oo maqas u diyaarsatay ayaa markii uu laxdii qabsadaba maqas shaaribadii qayb uga jartay. libaaxiina laxdii ayuu la booday waa uuna la cararay. waa intay ka lahayde subaxdii ayay shaaribadii la soo baxday ayadoo wadato gacanta ku haysata. waxayna nafteeda iskula hadashay alla ilaahay haddaan guul joogaa qardhaastiina la ii qori doonaa waayo caqligayga iyo xikmaddayda iyo sirsiritaankii aan sirsiray libaax ayaan shaaribadiisii ku helay. marka waa inaan wadaadkii abbaaraayo u tagaa. deedna waa ay soo baxday waxay soo abbaartay wadaadkii. markay u timid ayay waxay ku tidhi wadaadow waa kanaayo shaaribadii libaaxa waan keenaye ii qor qardhaastii aan kaa codsaday. wadaadkii ayaa la yaabay aadna u tacajubay. anfariir iyo filanwaana waa ay ku noqotay. waxa uu yidhi waraaqadda waan kuu qoriyaaye ma ii sharrixi kartaa sidii aad shaaribadii libaaxa ku soo heshay? naagtiina halkii ayay sharaxaaddii uga gashay iyo sidii ay libaaxii marba meel u soo istaajisay ilaa ugu dambayntii ay guriga soo gelisay oo maqaska shaaribadii uga jartay. wadaadkii oo yaaban ayaa waxa uu ku yidhi xayawaanada duurka jooga waxa ugu halis badan libaax. bila'aadankuna asaguu ka baqaa. libaaxuna sidoo kale bila'aadanka ayuu ka baqaa. marka maandhay haddaadba libaax soo xerogelisay ood saad u siraysay gurigaagii kaadkiisii aad keentay shaaribadiina aad ka jartay sidaasoo kalena ninkaa waad ku samayn kartaa oo waad siran kartaa. wax badanna waa aad ka beddeli kartaa. ninkaagu qardhaas kale uma baahna ee waxaa qardhaas u ah hadalka oo aad u macaanayso iyo gacantaada oo aad wax ku siiso sidaan kugula taliyey samee. naagtii waa ay soo baxday. taladii wadaadka ayayna qaadatay. ninkeedii bay hadba intay u yeedho hadal macaan kula hadli jirtay. kolba waxay naftiisu hibatana waa ay siisaa. markaasaa ninkii dib u jeclaaday oo aqalkii uu ka bixi waayey mar dambe kana maqnaan waayey. naagtii markay aragtay inay ninkeedii hantisay ayay wadaadkii u tagtay oo u mahadcelisay. sheekadan waxaan ka baran karaynaa in haweenku leeyihiin tabo iyo xeelado u qarsoon. waa midda labaadee waa dardaaran guudo gabar kastoo ninkeedii ku dhacsan ayadaa qardhaastii ay ku dawayn lahayd haysee qaab saykoloji ahaana oo maskaxi ku dheehan tahay ha u dawayso. saaxiib yaal sheekadeenna maanta halkaas ayay ku eg tahay. laygta iyo sheerta iyo sabskraibta waa noo muhiim. aad ayaad u mahadsan tihiin.